بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك شرفت له كسو دوادا برنامج كان لايف كأه oo aad ka daawanaysaan page-kan Asra Cadeed. waxaan rabaa inaan oga hadlo arrimahan aan ku xusay oo aan ciwaanka oga dhigay runtii in badan way iga guuxayeen arrimaha noocan oo kale inaan ka hadlo. arrimaha aan rabo inaan ka hadlo qaybo hadda taagan oo cusub iyo qaybo aan rabay weligeed inaan ka hadlo. su-aasha isweydiinta leh waa dad badan aan rabo inaan oga jawaabo waxay tahay waa kuma Naasir Cadeed. Naasir Cadeed ma sheekh baa, ma wariya, ma siyaasi baa? dad badan ayaa su-aashaas isweydiiya. waxaan rabaa inaan maanta qof walba ka qanciyo oo iraahdo qofku uu Naasir Cadeed yahay. walaalayaal, Naasir Cadeed sheekh ma ahan, wariyana ma ahan, siyaasina ma ahan. waa shakhsi Soomaaliyeed oo Soomaalida walaalihiis ah wanaagga la jecel. arrintaasi waxaan uga dhawaajinayaa waxay tahay marka aan wanaag kula wadaago ama wax kuu sheego macnaheeda maahan inaan adiga wax ku dheerahay, laakiin waxaan fursad u helay inaan hadli karo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ii siiyey inaan hadlo. laakiin macnaheeda maahan inaan adiga kaa caqli badanahay, kaa cilmi badanahay, waxna ku dheerahay. haddaan diinta ku xasuusiyo ama mas'alo ka hadlo oo diin ah, ma ahan waxaan aniga markaas aliftay ama aan samaystay, laakiin waa wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala i waafajiyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala noogu dhowaanayo. saas darteed anigu sheekh ma ihi. marka arrintaasna ujeeddaan oga dan leeyahay. wariye ma ihi oo saxaafadda ma soo baranin. siyaasi ma ihi oo afmiishaar ma ihi oo qofka siyaasadda yaqaano oo balaayada oo dee xisbi taageersan oo mataqaanaa qabyaalad ku jirto oo war badanna ma ihi. waxaan ahay qof daacad u ah waxa uu sheegayo, jecelna mar walba ummadda Soomaaliyeed inuu qanciyo oo uu ka qanciyo wax walba ay baahi u qabaan. waxaan jeclahay oo aan rabaa inaan ku guulaysto qof walba gurigiisa isagoo jooga in aan ilaahay wuxuu i waafajiyey aan la wadaago. ha noqdo kaftan, ha noqoto sheeko, ha noqoto maxaa la yidhaahdaa qosol, waxay rabtaba ha noqoto. waxaase ayaan darro ah oo in badan la kulmaa. mararka qaarkood markaan kaftamo dadka qaar waxay soo qoraan sheekha ma kaftamaa, sheekha saas ma suubiyaa, wadaad baan kuu qabaye, wariyaa goormaa noqotay, siyaasadda maa ka baxdid. waxyaalo aad saas u fara badan ayay dad badan wax isku dayaan inay mataqaanaa igu dhaleecayaan. anigana waan ogahay oo waan is aqaanaa, oo haddaan qof weji ka raadinayo oo haddaan rabo inaan maanta sheekh weyn iska dhig intaa cimaamad soo xirto oo khamiis soo xirto oo إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا انتا إراهدو أيام مارتي إنو أخرين لها أو أنسكدق لها وحانا أهين. لكن إلهي ما أبورين محايا لما لنت قيامة سدح دقف أقوه الرئيس النار تلقو عذابيو وحاكو جرى قف عالم وإلهي سبحانه وتعالى دين تبري مركو إلهي هوركينا وحلا لي هاي وحلا إلهي ودين تهدي أيام برتي وعالم بانا هايو. إلهي وحلي كذبت بين باشيكتي وحدين تأوبرتي ليقال لك إن لو هذا فلان عالم، فلان وشيخ، فلان وشيخ. ولا ليال أنا إلهي سبحانه وتعالى أيان أجر كرادين يا قف بالآذن وجه كرادين يا هبير عتيم جرتو. ساس درتد وح مركز سوق بيو وح مركز يوصل عن موضوع عرب إن كهالله أيان كهالله محايا لي إنه وجهه جمرة تسدو. saas darteed waxaa dhici karta dadka qaarkood inay iga xanaaqaan, dadka qaarkood inay taageeraan, dadka qaarkood inay weji kale iga arkaan. marka waxaan leeyahay Naasir Cadeed waxaad oga qanacdaan waa shakhsi Soomaaliyeed oo idin la mid ah, waxnana ayni kaga duwanayn, laakiin jecel fikirkiisa inuu soo dhiibto. saas darteed qofna wejooga ma raadinayo iyo inaa like siisaan iyo inaa ay buunbuunisaan kama rabo. maxaa yeelay maalinta qiyaame ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kullu nafsin bimaa kasabat rahiina. naf walba waxa ay kasbatay ayaa mataqaanaa loo haystaa. ilaahay dadka kale ima weydiinayo, maxaa yeelay walaa taziru waasiratun wisra ukhraa, nafi naf kale dembi ka qaadi mayso. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba. kitaabkaada akhriso kafaa binafsika asaga xisaab kugu filan. marka aniga cidna xisaabtayda igama qaadayso, qofka mas-uulka ii ahna ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa. sidoo kale waxaa lagu soo qoray waa sheekh alkull. sheekh alkulli macnaheedu waa kelimad khaldan weeye, oo sheekh alkulli wax laga wadaa qof munaafiq ayaa laga wadaa. saas waa khalad weeye. sheekh alkulli aniga mihi oo meel walba sheekha mihi, laakiin waxaan ahay qof isku kalsoon
waxa uu aaminsan yahayna jecel inuu soomaalida la wadaago qodobka labaad haddaan u gudbo diinta iyo siyaasadda walaalayaal marka aan diinta ka hadlo oo lagu bartay inaan wanaag ka hadlo oo dadka axaadiis u sheego oo khayrka ku baraarujiyo mararka qaarkood waxa laga yaabaa inaan siyaasad ka hadlo marka dadka qaar baa waxay la soo baadaan oo sheekh somatid oo siyaasadda maxaa ku geliyey war heedha maxaa dhacay markaas waxay idhahdaan arrintaas waa arrin khaldan weeye diinta iyo siyaasadda in la kala saarana waa gaalnimo weeye waxayna asal ku haysaa nimanka reer galbeedka ay ka timaaday waxaana la yidhaahdaa calmaaniyadda ayaa la yidhaahdaa waxaad ogtihin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa nebi wuxuu ahaa siyaasi wuxuu ahaa hogaamiye wuxuu ahaa shaksi dadka u jajaban qof fiican ayuu ahaa la kaftami jiray saxaabadiisa wax walba wuu ahaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabada sidoo kale cumar ibnu khataab abubakar caliy ibn abi aalib dadkeeni wada wanaagsanaa dhan siyaasadana aya ka hayay maamulkana aya ka hayay diintana aya ka hayay allahu akbar waa nimco aad iyo aad u weyn weeye marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay in aan ka fiirsano oo aan ogaano waxa aan ku hadlayno iyo waxa aan sheegi doono marka siyaasadda iyo diinta ma kala haraan qofkana iska ilaali inaa laguu soo qariyo lagu yidhaahdo wadaadka siyaasad haddaad ogeydeen wadaad masaajidka ku jira oo kitaabun akhriya oo mataqaanaa wax aan xadiis akhriya sheekadaas way soo dhammaatay haddaad ogeydeen wadaad aan kaftamin oo aan dadka ku dhex jirin oo aan dadka la hadli karin oo aan fikradiisa dhiiban karin sheekadaas iyadana way soo dhammaatay aanboodhaho naasir cadceed wuxuu ka mid noqon doonaa dadka la imaan doona isbedel doonka ah oo laga rabo wadaadada inuu kasoo saaro godka kasoo saaro uu ninka wadaadka noqdo ninka diinta leh uu noqdo qof dadka qancin kara oo barnaamijyo badan ka hadli kara oo ummadda isu keeni kara laakiin maahan wadaadka intuu masaajid fadhiisto uu ka hadla bes un salaada iyo soonka ka hadla maahan wadaadka waxaa la rabaa inuu ka hadla arrimaha bulshada arrimaha qoyska dhibaatooyinka jira ummadda waxyaalaha haysta inuu ka hadla ayaa loo baahan yahay marka iska hilmaama inaad tidhaahdaan sheekh baan ku malaynaynay war axaadiistaadi ku laabo ma ahan waxaa loo baahan yahay qofka inuu ka hadlo qadiyadaas taas hadda halkaa uga gudbo somalilan iyo soomaaliya waxaa moodaa dad badan inay xasaasiyad ka qabaan marka somalilan la sheego oo dadka somalilan u dhashay ama somalilan kasoo jeeda marka qof soomaaliya kasoo jeeda uu somalilan ka hadlo waxaa ku kacaysa xasaasiyad ayaa ku kacaysa dadka qaarkood soomaaliya maxaa uga sheegaysaa maxaa naga kaa khuseeya annaga maamul ayaan nahay war mid baa ina sheegaya somalilan waa wadan ka madax banaanaaday soomaaliya wuxuuna sheegtay inuu soomaaliya ka goostay naasir cadceedna kuma soo celin karo daahir calowsina kuma soo celin karo faarax iyo hebelna kuma soo celin karo soomaaliya ilaahay subxaanahu watacaala ayaa isu keeni kara marka aniga markaan somalilan ka hadlo ogama hadlaya inaan somalilan necbahay inaan somalilan xumaan la jeclahay waxaan oga hadlaya inaan somalilan jeclahay waxaan kaloo aaminsanahay anigoo soomaaliya u dhashay oo ku dhashay qoryooley haddana inaan berbere iyo burco iyo mataqaanaa gobolka togdheer iyo gabiley iyo wajaale aan midna liga xigin oo uu yahay dal soomaaliyeed uu yahay oy soomaali ku degan tahay waxaan kaloo aaminsanahay caawa haddaan burco imaado ama berbere imaado inaana cidna igu colaadinin inaan cidna igu dhibaynin in liisoo dhaweynayo inay walaalahi yihiin marka waxaan leeyahay dadka qaarkood somalilan kasoo jeeda marka qof soomaaliya u dhashay ama koonfurta soomaaliya u dhashay uu soomaaliya ka hadlo la leeyahay cadaawad baa jirto waana necabtihiin saan baa tihiin walaalayaal saas ma ahan way jiraan dadka qaarkood dad akhlaaq xun dad hadal xun dad cadaawad ku jirta dad si qabyaalad u hadla way jiraan oo dhinaca koonfurta kasoo jeeda kuwaas walaalayaal hanagu xisaabinina aniga iyo dadka ila midka ee walaalaheena ee wanaagga ka hadlaya kama hadalno dhibka somalilan ma jeclin somalilan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu wanaagga u ziyaadiyo inuu nabadda u ziyaadiyo inuu caafimaad khayr qaba siiyo inuu ictiraaf siiyo aamiin xataa la dho ilaahay ictiraafa siiyo aniga u duceynaya wallahi xataa xasaasiyad kama qabo hadday maanta ictiraaf helaan ay dowlad madax bannaan noqdaan waxaan aaminsanahay inay yihiin walaalaheen dowlad noo noqday sida jabuuti oo kale ay noo noqon doonto walaalo na kaalmeeyo oo na garab qabta waxaan kaloo leeyahay shacabka iyo siyaasiyiinta somalilan walaalayaal idinkana walaalihiin u arka waa lasoo dhaafay xilliga colaada waa lasoo dhaafay xilligii mataqaanaa 30 sano 50 sano ayaa kasoo wareegtay ma ahan xilli maanta la yidhaahdo nin baa saa noo galay ninkii soomaaliya xukumay ee saa u galay waa dhintay ilaah u naxariisto adduunku waa ka tegey qof walbana adduunku uu ka tegaya maalinta qiyaamana sida ayaan qodobkayga saddexaad aan ka hadli doono coldoon uu sheegayay ilaahay subxaanahu watacaala somalilandna ku weydiin maayo soomaaliyana ku weydiin maayo naftaada ayuu ku weydiinayaa camalkaada ayuu ku weydiinayaa
marka walaalayaal waxaan u baahannahay inaan nafteena u shaqaysano oo ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsano oo aakhiradeena ka fikirno maxaa yeelay adduunkan cidna joogi mayso madaxweynihii ugu horreeyay somaliland aawey cigaal ma joogo allah u naxariisto madaxweynihii soomaaliya dhibaatada ka geystay dadka dhibaatada haystaan ma joogo qof walbana saas ayuu u socdaa hadda aan hadlaya dad baa dhimanaya adduunka walaalayaal waa saas marka waxaan leeyahay kuwa koonfurta soomaaliya kasoo jeeda ee ayakana cadaawadda iyo cuqdada iyo qabyaaladda iyo somaliland nacaybka ku jirtan ayakana waxaan leeyahay ilaahay ka cabsado reedha walaalihiin ha nicina oo u tura oo u duceeya oo waxaad tidhaahdaan mataqaanaa wanaagga la jeclaada inta ilaahay subxaana watacaala siiye wanaagna ilaahay ha u ziyaadiya hala yidhaahdo waxaa kaloo kusoo haray dad waxaa jira marka la yidhaahdo xamar marka laga sheekay ama dowladda soomaaliya ama dowladda xamar la yidhaahdo ayakana cuqdad ka qaado oo yidhaahdo maxaa dowladda xamar bas u leedahay dowladda soomaaliya maa tiraahdid horta soomaaliya dowlad magac ahaan bay ka tahay laakiin maanta dowlad soomaaliya oo soomaaliya dhan xukunta ma jirto marka saas darteed dowladda xamar joogta farmaajo meeshu hadda jooga xamar weeye dowladdiisa wax loogu magacaabi karaa xamar ayaa madax u ah sidoo kale waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo ayaan dhoweyd waxaan ka hadlay dekeda berbera marka waxaa yidhi maamulka somaliland kuwa waxay ku leeyihin maxaa u leedahay maamulka somaliland maa tiraahdi dowladda somaliland dadka noocaas oo kale ah waxaan la yaabay meesha ay wax ka raadinayaan maamul iyo dowladda waa isku mid waay hadda bush administration american administration trump administration obama administration waa maxay waa maamulka obama maamulka maraykanka maamul iyo dowladda waa isku mid marka erey aan qof uu yidhaahday ama wax uu ku tilmaamay wax weyn in laga dhaliyo walaalayaal ma aha marka waxaan leeyahay soomaaliya ha noolaato somaliland ha noolaato soomaali meel kasta ay joogtana ha noolaadaan ilaahay subxaanahu watacaala ha sharfo dhibaatada iyo hana ka qaado walaalayaal waxaan rabnaa inaan noqono shacab isjecel annagoo walaalaha oo isjecel ayaa waxaanu noqon karnaa laba wadan oo jaar oo nabad ku wada noolaan karna haddayba dadkii xataa go-aankaas gaareen ma u baahnin inaan cadaawad ku kala maqnaano ma u baahnin inaan cuqdad isgelino maxaa loo baahan yahay inaan noqono dad xadaariyiin ah waxaanu noolnahay sanadkii waxaanu noolnahay 2017 ayaanu noolnahay oo waqtiga waxaa loo baahan yahay dhalinyarada isdhexgeli lahayd maanta ani magaaladan joogo waxaa degan dad badan oo somaliland kasoo jeeda cuqdadii ma qabaan waa saaxiibaday waa isjecelnahay ilaahay dartiisa ayaa isku jecelnahay asxaabtayda waxaa ugu badan maxaa la yidhaha kuwa somaliland kasoo jeeda saasoo kale waxaa loo baahan yahay in mar walba ayadana xaaladda la dejiyo waxaa kuusoo hartay xariga coldoon walaalayaal cabdimaalik waa nin fiican intaan ka baranay waa nin wanaagga u taagan soomaalidana wax tara dadka dhibaataysanna caawiya anigu waxaan ku bartay dameerku waa caawiyey idinka dad baad ka hadlaysaan ninkan dameer buu caawiyey dameer lugta laga gooyey oo rafaadsanaa wuxuu ahaa ninka ugu horreeyey oo dhibaatadiisa soo bandhigay waxaadna ogeydeen wanaaggii uu suubiyey in loo riyaaqay soomaali badanna ay qaaday waxaan aaminsanahay cabdimaalik waa nin xor ah xor wuxuu u yahay fikirkiisa wuxuu xor u yahay inuu cabiro cabdimaalik kuma raacsanay hadduu sheego wax somaliland lid ku ah ammaankeeda lid ku ah dhibaato ku haysa ma jecli taasna kuma taageersani laakiin intaa hadda ka arkay wax dhibaato aniga kuma arkin ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan leeyahay dhibka ha kaa ilaaliyo hana kuu sahlo waxaan halkan ka salaamayaa cabdimaalik iyo asxaabtiisii dhammaan waxaan leeyahay salaan iga gaarsiiya ani shaksiyan isuma naqaano wallahi soomaalinimadaas baan ku arkay mid kalena waa inaa ogaanaa soomaalinimada way naga dhexaysaa ama somaliland how ama jabuuti how ama jigjiga ka imow ama gaarisa ka imow ama gaarisa muxuu dhihi jiray jigjiga waaqan heestiisa siduu qaadi jiray dhaxalkii awowyaashay saas ayuu oran jiray marka yani dhaxalkii awowyaashay uu naga dhexeeyaa soomaalinimada waa wax naga dhexaysa mana diidi karno laakiin aan kala noqono gobol aan noqono waxaa kale ogtihiin somaliland iskaba dhaaf soomaalidii koonfurti ayaa kala go'day oo galmudugey puntlandey jubbalandey hirshabeeley maxaa aqaanaa waa kun xuduud baa dhex taala marka horta bal koonfurta markaan soo isu furno oo soo hagaajino oo aan mataqaanaa noqono gaalkacyo isku furanto ayaa xataa dadka somaliland la hadli karnaa marka intaa dadkana koonfurta ka yimaaday waxaan leenahay bal horta marka hore nimayo annaga aan iswanaajino marka gaariga ka baxa magaalada muqdisho uu tago non stop uu boosaaso tago uu baargaal tago uu kasoo baxo gaariga baargaal kasoo baxo uu kismaayo yimaado asagoo dhibaato kala kulmin oo aanan wax carqalad ka hor imanin ayaa markaas insha allahu tacaala rajaynaynaa marka xariga caldoon waxaan leenahay dowladdiisa ayaa xirtay ayaan dhowd waan soo qoray waxaa yidhi dowladdiisa ayaa xirtay dad baa waxay ku leeyihin dowladdiisa maxay tahay dee somaliland baa xirtay somaliland waa maamul madax bannaan cidduu rabuu xiri karaa cidduu rabana mataqaanaa maxkamad buu geyn karaa arrintaasna annaga
awood kuma lihin mana oran karna muxuu u xiray laakiin waxaan ka codsanaynaa si naxariis looga codsanaynaa maamulka somaliland dowladda somaliland inay ninka xorriyadiisa soo celiso oo loo ogolaado inaan dhib loo geysanin sidoo kale walaalayaal haddii dadka qaarkood su-aasha isweydiiyaan waxay tahay hadduu madaxweyne kenya taageeri lahaa ama etoobiya taageeri lahaa ma la xiri lahaa su-aashaas su-aal aad yani soomaalida isu weydiisa weeye taas ilaahay subxaana watacaala ayaa yaqaana laakiin waxaan aaminsanahay maamulka somaliland waxay ka baqeen cabdimaalig coldoon waa nin social mediaha kuleh saameyn waa nin ay dad badan ku xiran yihiin marka waxaan u malaynayaa waxay ka baqeen inuu saameeyo jiilka cusub waxay ogtihiin in soomaalida la kala xirxiray oo cuqdo lagu kala akhriyey marka hadduu cabdimaalig oo xamar boodboodayo oo qurux ka sheekeynayo xamarna dhalinyarada loogu sheekay war meeshaas waa bahalagaleen waa laisku cunaayo dee yaa waa saas hadii lagu yidhaahdo ay dhalinyarada hadhowta arkaan ay yidhahdaan nin xamar waa magaalo caadi oo la baashaalaye aan balniyo ka baxna hargeysa iyo burca iyo intaan aan ka baxno aan baljawga rogano marka saameyntaasna maamulka somaliland wuu qadarin karaa oo dee waa dad dowlad jirto sirdoon leh wax kasta leh marka waxay soo hartay farmaajo madaxweynaha cusub ee la doortay howl badan ayaa sugaysa dabin badanna wuu sugaya marka madaxweynaha dhowr fariin ayaa u diraya kow inuu mataqaanaa noqdo madaxweyne cadaaladda ku dhaqma dadkana u asxaanfala labo madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu joojiyo xafladaha lagu soo dhaweynayo waddanka walaalayaal abaaro badan ayaa ka jira abaar aad u xun ayaa ka jirta dhibaato ayaa ka jirta xaflad kastoo la qabtana lacag ayaa ku baxaysa marka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu joojiyo xafladaha la qabanayo waxaan sidoo kale ka codsanaynaa inuu mataqaanaa dardar geliyo dadka dhibaataysan in wax loo qabto marka madaxweynaha soomaaliya maxamed farmaajo waxaan leenahay mudana madaxweyne waxaan kaloo kaa codsanaynaa ninka ku daba taagan markaa hadlaysid waa aragtay madaxweyne kastoo soomaali ah nin baa daba taagan askari koofiyad xiran baa daba taagan saacad hadduu hadlayo 2 saac hadduu hadlayo waxa weeye mataqaanaa waa daba taagan yahay madaxweynaha waxaan leenahay arrintaas in la joojiyo oo qofka la ixtiraamo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy walaqad karamnaa bani aadamku waanu karaamaynay marka waxaanu karaamada uga baahannahay in la karaameeyo askarigaas in uu madaxweynaha iska dhigo qof shacabka ka tirsan ma ahan in qof bini aadamna maanta dhan uu daba taagnaado qodobka afraad ama shanaad oo aan rabo inaan kusoo gebagabay wuxuu yahay inaan noqono qof maskax furan walaal waxaa loo baahan yahay inaadan noqon qof hal meel wax ka maqla waa inaad wax akhrisaa waa in haddii qof xumaan lagugu sheegaa aad qofkaas ka wardoontid waa inaad tiraahdaa war horta waxaan wax jira miya anigu xaggeen gaarsiisanahay warkayga xagguu jooga marka saas darteed waxaan loo baahan yahay inaan mar walba noqono dad maskax furan oo dadkeenna wax tara ma ahan inaan noqono dad wax lagu shubto oo dhaga xiran oo mataqaanaa colaad u qaada mathalan soomaali baa tahay hebel baa wax lagugu sheegaya oo ka xanaaqaysa maanta waxaa ogtihiin inuu magacaabay dad cusub agaasimayaal cusubay markiiba waa la mucaaraday waxaa la yidhi ree hebel buu magacaabay qabiilkiisuu magacaabay kan usubay war qabiil waxba ha ku dhisin adiga waxaa lagaaga baahan yahay inaad noqotid qofka muxuu qaban karaa hebel muxuu yaqaanaa hebel dalka wax muu qaban karaa ma garateen marka walaalayaal waxaan leeyahay lamana sheegin ilaa hadda taariikhda laguma sheegin madaxweyne soomaaliyeed qabiilkuu rababa ha ka dhashee oo qabiilkiisa wax u qabtay hadda waxaad ogtiin madaxweynihii jegada ka dega xasan sheekh ilaahay ha xifdiyo madaxweynihii hore soomaaliya muxuu u qabtay reerkiisii muxuu qabiilkiisi u qabtay waxba umuu qabanin waxa weeye asagunbaa madaxweyne noqday asagaa shaksi noqday farmaajo sidoo kale reerkiisa waxba u qaban maayo shariif waxba uma qabanin cabdullaahi yuusuf wax ma qabanin hebel waxba uma qabanin bal mas-uuliyad weyn baa saaran marka waxaan leeyahay qabiil ha ku taageerin wasiir kasta inta soomaaliya soo martay wasiir ree hebel noqday ree hebel muxuu taray waxba ma tarin marka ma ahan inaad ku qiimaysid annaga ree hebel ah inaan halkaa ka muuqano siyaasadda ka muuqano waxaa markaa wax lagu qiimeeyaa ay tahay inaan wax ku qiimeyno in qofka dalka dadka danta dadka diinta wada inaan u qiimeyno marka walaalayaal jazaakum allahu khayran aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin ilaahay subxaanahu watacaala ha idin sharfo asxaabtayda sharafta leh meel kasta aad joogtaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka waxaana mar labaad ku xariiqaya hoosta ka xariiqaya walaalayaal markaa mawduuc ka hadlo aniga shakhsi baan ahay sheekh ma matalo qabiil ma matalo cid kale ma matalo waxaan ahay qof soomaali ah soomaalina matala waxaana cabirayaa fikirkayga ayaan cabirayaa waxaana idin leeyahay walaalahayga ayaa tihiin meel kasta adduunka ka joogtaan ilaahay subxaanahu watacaala ha idin sharfo wa axsana allahu ilaykum وجعل الجنة مثواكم
ilaahay subxaana watacaala dhibaatada ha ka qaado soomaaliya ilaahay subxaana watacaala abaaraha naga qaado ilaahay subxaana watacaala quluubteena ha isu wanaajiyo ilaahay subxaana watacaala ma aragtay nabad iyo ammaan hana siiyo ilaahay subxaana watacaala isaga qaadir ah wuxuu awoodaa dalkaas burburay ee 30 sano dhibaatada ku jiray inuu ka dhigo dal mataqaana nabad oo nimco leh walaalayaal waxaad ogtihiin wadanka la yiraahdo Uganda Kampala 79-80 dagaalo ka dhacay Soomaaliya ka daran ayaa ka dhacay way burburtay way baabaaday maanta way ka soo kabsatay waxay noqotay dawlad annaga saameyn ugu yeelata oo Ugandada inta noo jirta Muqdisho ay ciidamada dhex joogaan marka walaalayaal waxa loo baahan yahay intaas looga hadlo qodob kale oo muhiim ah hadda igu soo dhacay Uganda ku soo xasuustay marka aan mowduuc ka hadla dadka qaarkood waxay dhahaan maxaa mowduuc hebel uga hadli weysay maxaa مثلا ayaan saldhigga berberaan ka hadlay qaar ba waxay ku doodayaan maxaa uga hadli weysay Uganda iyo Burundi iyo AMISOM joogta Muqdisho war qofka markuu mowduuc ka hadlo mowduucaas ayuu ka hadlayaa annaga AMISOM raali kama nihin Burundi raali kama nihin Uganda raali kama nihin Turkiga xataa raali kama nihin oo Soomaaliya daldalaynayo dhibaatada ku goranaya laakiin markuu qofka mowduuc ka hadlayo de kun mowduuc kama wada hadli karo markuu wuxuu ku qasban yahay mowduucaas uu ka hadlayo inuu ka hadlo labo waxaa jira dad aniga iga cilmi badan iga aqoon badan oo mowduucyada qaarkood ka hadlay si kastaba ha ahaatee walaalayga sharafta leh hadalku si dheeraanaya markuu live yahay live-kan waxa u soo galay runtii inaan fikradan gudbiyo waxaan marka aad ugu mahad celinayaa dhageystayaasha wacan daawadayaasha wacan meel kasta adduunka joogaan walaalayga sharafta leh ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin sharfo waan jeclaan lahaa maanta inaan telefonka furto oo live u wada sheekaysano laakiin de aniga oo ka hadlay telefonkii marka ma sii deyn karo su'aalihiina ma akhrin karo okiyalihi waan soo hilmaamay arbalukaadi waan ogahay inuu waardiyo yahay marka si kastaba ha ahaato khayr fara badan ayaan rajaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala idin xifdiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh